Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo ku saabsan ama la xiriira casharadii ku saabsanaa barashada luqadda Ingiriisiga. Casharka maanta waxaan uga hadli doonaa wax la yiraahdo verb to have. Sidaan hore la soconaba ama dadkii ku xirnaa casharada aan soo geliyo YouTube-kan, waxaan hore usoo qaadanay wax la yiraahdo verb to be. Maantana waxaan casharkan ku qeexi doonaa verb to have iyo sharciyadiisa iyo qaabka loo isticmaalo iyo waxa uu yahay. Marka ugu horeysa verb to be aan hore usoo qaadanay waxaan sheegnay iyo verb to have inay ka mid yihiin asaasiyaasha grammarka luqadda Ingiriisiga, muhiimna ay tahay qofka markuu grammarka luqadda Ingiriisiga baranayo uu marka ugu horeysa uu faham guud ka haysto labadan. Marka verb to have maanta waxaan dhahnay Soomaali ahaan waxa uu noqonayaa ficil ka hadlaya haysasho. Ereyga have waa haysasho, sidaa darteed ayaa loogu bixiyay ficilka haysashada ama lahaanshaha. Verb to have marka waxaan dhahnay intan waa sharciyada ama waxyaabaha ugu muhiimsan. In all simple tenses, dhammaan tennisyada simple tenniska la yiraahdo, the verb have, verbka have-ka can be used, waxaa loo isticmaali karaa as the main verb, waxaa loo isticmaali karaa ficil keligiis ayaa loo isticmaali karaa. Marka taas maxaa loola jeedaa? Waxaa loola jeedaa in subjectiga ama ficil sameeyaha iyo ficilka iyo objectiga lagu sameeyaha intuba inay isku xiri karto ama inay verbka ay u noqon karto have. Si kale haddii aan u dhigno verbka have ayaa waxa uu noqonayaa ereyga verbka keliya ama ficilka keliya ee jumlad lagu dhisayo. Tusaale ahaan waxa uu noqon karaa I have a car, waxaan haystaa gaari, ama waxaan leeyahay guri, ama waxaan haystaa qalan, ama waxaan leeyahay caruur. Waxyaabahaas dhan lahaanshaha ka hadlaya waxaa la yirahdaa verb to have. Markii la joogo in all simple tenses, tennisyada simple tenseska ah, markii la joogo ficilka have waxaa loo isticmaali karaa main verb. Main verb waxaan dhahnay waxaa loola jeedaa jumladda ficilka ay leedahay ama ficilka uu ku dhisan yahay jumladda ayuu noqon karaa, marka ayaa loo adeegsanayaa marka have. In all perfect tenses, tennisyada perfectiga markii la joogo the verb have, ereyga verbka ama ficilka have markaasi is used waxaa loo isticmaalayaa marka an auxiliary verb. An auxiliary verb waxaa la yiraahdaa ficil caawiyaha ah, ama waxaa loo isticmaali karaa ficil caawiya ayaa xilligaasi loo isticmaali karaa. Yacni jumladaas main verb ahaan looma isticmaalayo, laakiin ficil kale ayay raacaysaa marka have-ta. Waa marka la joogo perfect tenses. Point kale oo muhiim ah, when the verb, marka uu verbka ama verb to have-ka ayaan ula jeednaa is used as the main verb, markii verb to have-ka oo waxyaabaha hadda aan ka hadlayna ay tahay markii loo isticmaalayo main verbka ama ficilka keliya ee jumladda ay ku dhisan tahay, markii loo isticmaalayo it is usually used only in the simple forms. Marka tan kore ay la socotaa, marka jumladdan ay sii qeexaysa keliya, taasoo macnaheedu yahay simple tenseska markii la joogo ayaa had iyo jeer keliya ay main verb u tahay ama ficilka keliya jumlad lagu dhisi karo ay tahay verb to have-ka. Marka verb to have-ka waxaan dhahnay waa main verb ay tahay markii la joogo simple present, simple past iyo simple future. Saddexdaas ayaa loola jeedaa simple tenseska. Markaas waxay noqonaysaa ayaan dhahnay main verb ay noqonaysaa oo maanta ah waxyaaba aan ka hadlayno ama ficil lahaanshaha ama haysashada. Waa hagaag. Halkan waxaan ku fiirin doonaa positive sentences. waxaa la yirahdaa positive sentence, waxaa la dhahaa ama la yirahdaa hadalka caadiga ah ee aan diidmada ahayn ayaa la yirahdaa. Marka waa negative, waa ereyga kasoo horjeeda. Marka negative sentence marka lagu dhaho waa jumlad diidmo ah.
positive sentence waa hadal caadi ah ayaa loola jeedaa marka mean verb waxaan dhahnay saddex ayaan ka dhigay subject waa ficil sameeyihii iyo mean verb oo have ah iyo object oo ah lagu sameeyihii ama jumladda waxa laga raba inay noqoto ugu yaraan jumlad markii la dhisayo jumladda inta badan waxa lagu dhisaa waa subject iyo verb iyo object marka mean verb iyadoo ah ayaan ku qaadanaynaa casharka maantaas ayuu ku saabsan have oo aan ahayn auxiliary laakiin ay tahay ficil kaligiis meel taagan oo jumlad dhisi kara okay tusaalaha koowaad waxaan dhahnay marka in yar haddii aan dhaho marka simple present markii la joogo have waaye have ayay noqonaysaa markii simple past ama markii wax lasoo dhaafay ay tahayna waxay noqonaysaa had markii future ama wax mustaqbalka dhici doona laga hadlayana will have ayay noqonaysaa marka will oo auxiliary verb ah ayaa have ti raacaysaa marka have ayaa markaas ah verbka jumladda marka aan ku bilaabo tusaalaha koowaad waa simple present iyadoo ah oo have la isticmaalayo marka waxaan dhahnay I have a car waxay noqonaysaa waxaan haystaa gaari sooma waxay noqonaysaa I have a car waxaan leeyahay ama haystaa gaari markii aad dhahaysa tusaale gaari ayaan haystay waxaad leedahay keliya I had a car meeshaas haftii waxay isku bedelaysaa had ay isku bedelaysaa markii simple present marka jumladan koowaad waa simple present tense oo loo isticmaalayo have ereyga have waxaan dhahnay markii present ay tahay waa have markii past ay tahay waa had markii future ay tahayna waa will have okay tusaalaha labaad waxaan dhahnay we had a lot of homework waxaa la yidhahdaa casharada ama su-aalaha la iskugu soo diro guriga ama in guriga waxa usoo shaqaysid ayaa la yidhahdaa homework marka waxaan haysanay homework badan ayaan haysanay ama mashruuc badan oo guriga loogu soo shaqaynayo su-aalo ah ayaan haysanay marka I have a lot of homework na waa dhihi kartaa ama we have a lot of homework or she has a lot of homework marka meeshaas have iyo will have iyo had intaba waxay ku xiran tahay waqtiga la joogo markii present la joogo have ayaad isticmaalaysaa markii past la joogana waxaad isticmaalaysaa had markii wax mustaqbalka ahna ama howl lagu diri rabo ama howl aad qaban rabtid ama wixii ku salaysanba wax mustaqbalka dhici doona markii aad ka hadlaysana waxaa leedahay will have okay tusaalaha saddexaad waa simple future ama simple future waaye marka waa wax mustaqbalka dhacaya ayaa laga hadlaya marka you will have a nice house waxaad lahaan doontaa a nice house guri wanaagsan ama qurux badan ayaad lahaan doontaa marka marka waxaan dhahnay have-ka waxaan maanta casharkan ku qaadanaynaa muhiimadiisu ay tahay qaabka loo isticmaalo verb to have-ka waxaan dhahnay waxa weeye ama waxa muhiimadiisu ay tahay in guud ahaan aad ka fahanto ficil haysasho ah oo sameynaya have-ti kaliya iyo ficilka jumladda dhisaya ay tahay okay tusaalahan kale oo the cars gawaarida ama baabuurta have waa markay simple present tahay slash ama slashtan waxa weeye ama past had ay tahay ama will have future marka saddexaas mid waa gelin kartaa marka hadda teena sidii saddexdan jumlad kore ama kor ku xusan waxaan kala bixiyay teena sida laakiin jumladan waxaan ka dhigay hadba teena aad joogtid ayaad gelinaysaa marka the cars gawaarida have a new tires waxaa la yidhahdaa marka waa lugaha gawaarida marka gawaarida waxay leeyihiin ama waxay haystaan ama ay leeyihiin lugo cusub ay leeyihiin marka tire cusub ay leeyihiin ama waxaad dhihi kartaa haddii baasta ula jeedin the cars gawaarida had waxay lahaayeen new tires lugo cusub ay lahaayeen ama the cars gawaarida will have waxay lahaan doonaan new tires lugo cusub
وهكذا she da ama it ama he intaba waa singular mar kale ayaan qaadan doonaa waa marka laga hadlayo wax mufrad ah marka she waxaan dhahnay has sababtoo have ma qaadanayso have waxaa qaadanaya keliya wixii jamac ah iyo I marka she has yani waxay a great time in the state gobolka ayay waqti fiican ku qaadanaysaa marka she has waxay haysataa ama waxay waqti ku qaadanaysaa waqti fiican ay ku haysataa ama ku qaadanaysaa ayaa loola jeedaa a great time in the state ama she had waa dhihi kartaa markay baasid tahay haddii waqti fiican ku qabtay ama will have ayaad dhihi kartaa marka will have-na waa dhihi kartaa kan ugu dambeeya tusaalaha ugu dambeeya ee positive sentenceska ama jumladaha caadiga ah aan diidmada ahayn waxa weeye her father aabaheeda has wuxuu haystaa a very good job shaqo aad u wanaagsan ayuu haystaa marka ama waxaa dhihi kartaa haddii aabaheeda shaqo fiican haysan jiray hoose laakiin hadda haysanin waxaa dhihi kartaa her father aabaheedu wuxuu haystay a very good job shaqo aad u heersareysa ama wanaagsan ama waxaa dhihi kartaa aabaheeda waxa laga yaabaa shaqo fiican inuu helo oo aad leedahay her father aabaheeda will have wuxuu haysan doonaa a very good job shaqo heersare ah waa hagaag marka qaybtan waa negative ama iyadoo diidma ah marka waxay ku kala duwan yihiin iyadoo markay diidma ay tahay iyo markii ay tahay positive waxay ku kala duwan yihiin wax kale ma ahan markay negative-ka ay tahay waxaa raacaya have-tii ficil caawiye ayaa raacaya marka ficil caawiyada hadba tenniskii la joogo ayaa raacaya marka tusaale haddaan soo qaadano I waxaan dhahnay waa subjectigii do not have a time to visit him okay do not raacda marka have-tii markay negative ay tahay do not-dan waa diidmadii laakiin do ayaa raacday ama markay positive tahay did ayaa raacaysa ama markii ay future ay tahay will ayaa raacaysa marka tusaalaha labaad we don't have ama we don't have laba waa dhihi kartaa we don't have to cook dinner when I got home wuxuu yani cunto ma karin doono we don't have mada koowaad markay simple ay tahay we don't have time to cook a dinner when I got home marka aniga aan guriga imaado yani ma karin doono cunto ama casho aan iraahde casho ayaa loola jeeda ereyga dinner to cookna waa karintii when I got home waxa markaan imaado guriga marka ama waa markay tahay present yani negative ay laga hadlaya wax ma karin doono waa marka casho ma samayn doono waa marka ama waxa weeye we didn't have to cook when I got home ama I will not have to cook dinner when I got home okay marka waxaa raacaya have-tii auxiliary verb ayaa raacaya ficil caawiyaal oo hadba ay ku xiran tahay saddexdii tennis aan soo sheegnay way auxiliary verbkooda ama kuwan ficil caawiyaasha raaca ayaa raacaya marka tusaalaha kale they don't have a lot of money to visit or to visit Mary lacag badan oo Mary ay ku booqdaan ma haystaan they didn't have a lot of money to visit Mary lacag badan oo uma haysanin oo ay ku booqdaan Mary they will not have a lot of money to visit Mary marka intaba waxay ka hadlayaan haysasho ay ka hadlayaan marka waa ma haystaan iyo way haystaan marka labadaas waa negative-kii iyo positive-kii oo jumladii koowaad aan soo qaadanay marka muhiimadda ugu horeysa waxa waaye inaad fahantid have inay tahay mean verb inay noqonayso gaar ahaan markii la joogo tennisyada simple tenniska mb intan waa marka muhiim waaye mb-dan
sababtoo have waxaa dhahnay waxaa la isticmaalayaa markii la joogo present simple tense ayaa la isticmaalaya. marka waa muhiim taas. hadna waxaa la isticmaalayaa markii la joogo past simple. will have na waxaa la isticmaalayaa markii la joogo future simple. marka saddexdaas waa muhiim qofka inuu gacantiis ku hayo uu garanayo. haddii saddexdaa marka aad kala fahantid iyo habka jumlada loogu dhisayo keliya waxaad u baahan tahay subject iyo object keliya dhexda ayaad ka gelinaysaa have ama had ama will have. marka halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa casharkii ahaa verb to have. horeyna saan sheegay waxaan usoo qaadanay verb to be oo asagana ahaa ficil ahaansho, laakiin kan waa ficil haysasho ah ama wax aad leedahay, waxaad haysatid wax kale qof haysto marka aad ka hadlayso. marka halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa casharkii ku saabsanaa barashada luqadda ingiriisiga, gaar ahaan grammarka ama barashada sharciyada luqadda ingiriisiga. intaan ku kulmi doono muuqaal kale waxaan idinkaga tegay sidaas nabadgeliyo. haddii aad ka heshay fadlan subscribe channelkan, sidoo kale asxaabtaada la wadaag. haddii aad doonayso wax ka bedel ama ra'yi waan soo dhaweynaynaa. sidoo kale comment ka soo bixi insha Allah. intaan muuqaal kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegay sidaas iyo nabadgelyo.